dumarku maahmaaha u gaaray leeyihiin raggu inta uu maahmaaho in ka sii badan yay maahmaahaan laakiin maahmaahdoodu wax ninka ku eg bay u badan yihiin wax dibadda uga baxa ma ahan waxay ka bilaabeen culummada waxay yiraahdaan fasiraad kale uma baahnee waxay yiraahdaan wadaad waa ninna waa asag iyo waaridka alcadaab waa gartii la galo waa naga hiilinayaa wadaadku eex bay u arkaan maahmaahda labaad waxay yiraahdaan wadaad waa nin maxay ka wadaan waxay ka wadaan raggu waa isu hiilinaya ayagaa is ah maahmaahda kaleeto waxay yiraahdaan kor biliseed kaba isma dheera maxaa laga wadaa waxa laga wadaa haday islaantu weyn tahay iyo haday yadhahay waa isku xurmo waa isku meher waa isku quality waa isku dhadhan noocaasay ka wataan isku mid baan u nahay bay ka wataan isku dhadhan qofna waa qof weyn oo daa oo soo shaqeeyay qofna waa qof yar oo markaan waxa weeye dardartiisii qaba si isku mid u noqon karaan bilis baa la isku yiraahdaa magac bay wadaagaan magaca ka hadlaysaado magacay wadaagaan bilis baa la isku yiraahdaa waa isku xurmo iyo isku xaquuq midda ugu yar iyo tan ugu weyn waa isku xaquuq iyo isku xurmo meherkana isku sibay u qaataan meherkuna isku dhadhanka ka reeb waa isku dhadhankooda ma aqaan meherku isku sibuu u qabanaya haday yadhahay haday weyn tahayba maahmaahda kale waxay isa su'aaleen waxaan ragga ku yaala oo uu isticmaalka noogu geystaa maxay yihiin mid baa waxay tiri waa laqan lilihi qooqsanayo ma ahan wax kaleeto maxay ka wadaa laqan lilihi qooqsanayo waxay ka wadaa wax kibray oo nin ku xiran weeye wax kaleeto kama ay wado ma laf baabay tiri ma jiirba ma dhagaxba na waa laqan lilihi qooqsanayay tiri wax kibray oo marka nin wato bay ka soo qaada mideeda kaleeto iyadoo uu ku ciil qabtaa waxay tiri haddaan kaas calaf ku leeyahay ciribtaydu iiga bixi lahaa aniga ciribtaydu iiga bixi lahaa